wanaagsan daabadayaal kusoo dhawaada warka habeen ee TV-ga Risaalo qodobada ugu waaweyn adaca warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahin ka soo baxaysa qarax miino oo ka dhacay magaalada Muqdisho koonfur galbeed oo toogatay rag kufsiga geystay magaalada Baydhabo iyo maamulka oo ka hadlay dilka ragaasi kufsiga geystay faahfaahin ka soo baxaysa dagaal ka dhacay gobolka Sool iyo Somaliland oo ciidamo u dirtay deegaanada lagu dagaalamay Jubbaland oo amni darrada gobolka Gedo ku eedeysay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo ciidamo sheegtay in la geeyo gobolkaasi akhbaraadka caalamka warkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wasiirka dhaqaalaha Kanada oo iscaasilay kadib eedeymo musuqmaasuq loo jeediyay iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo xilka ka qaaday dhammaan wasiirada khilaafku kala dhaxeeyay intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warka TV-ga Risaalo markana ku soo dhawaada iyagoo intaasi ka faahfaahsan aynu ku hormarnay faahfaahino ayaa waxay ka soo baxayaan qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ayaa duhurnimadii maanta Talaadaha ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayadoona qaraxa jugtiisa inta badan laga maqlay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho qaraxa ayaa ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ah iyadoo lala beegsaday gaari kuwaan xabadu karin oo maraya agagaarka isbitaalka Deeva oo ku dhow isgooska Tarabuunka ee degmada Hodan gobolka Banaadir wararka ayaa sheegaya in qof waday mooto bajaajle ah uu ku dhaawacmay qaraxa kaasoo loola cararay isbitaalka ciidanka ammaanka dawladda ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxayna halkaasi ka bilaabeen baaritaan la xiriira qaraxa meesha ka dhacay oo aan weli la xaqiijin in gaariga hore loogu sii xiray iyo wadada dhinaceeda in la dhigay xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho ayaa maalmihii u dambeysay sii xumaanaysay iyadoo qaraxyo ay weeraro ay markaa dhaceen waxa uu ka dambeeyay maalin ka hor oo hotelka Elite oo ku yaala agagaarka xeebta Liido lagu qaaday weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah taasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux koonfur galbeed ayaa toogatay rag kufsiga geystay magaalada Baydhabo iyadoona maamulka uu ka hadlay ragga dilkaasi lagu fuliyay waxa faahfaahinaya Rijaal Cabdi magaalada Baydhabo waxa maanta lagu toogtay 2 nin oo fal kufsiga u geystay wiilal yar sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxaana toogashadaasi fuliyay ciidamada maamulka koonfur galbeed iyadoo ay jirto in wax maxkamadda la horkeedin labadaas ruux ee ay maanta toogteen waxaana koonfur galbeed ay sheegtay in ay qirteen falalka lagu soo eedeeyay dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa maalmihii la soo dhaafay maamulka u dirayay cabasho ay ka muujinayeen dadka geysanaya falalka kufsiga ah oo maamulka uu waxba ka qaban war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in falkan uu yahay mid looga hortagayo falalka diinta ka baxsan ee dadka shacabka ay sameynayaan wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed Maxamed Xuseen Xasan waxa uu sheegay in maamulka marnaba aysan ogolaan doonin in deegaanka laga sameeyo falal foolxun oo ka hor imaanaya diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya cidii lagu arkana tilaabo sharci waafaqsan laga qaadayo waxa uu sheegay cid kasta oo falkaasi foosho xun sameysay wajihi doonto cadaaladda maamulkana si degdeg ah uu tilaabo kaga qaadayo marnaba ma ogolaan doona cid kasta oo ku hawlan inay wax u dhameyso diinteena dhaqankeena bulshadeena iyo amnigeena cid kasta oo falkaasi foosho xun sameysa waxay wajihi doontaa tilaabo ku haboon oo cadaaladda ayaa la marsiin doonaa sida maanta dhacday ayuu yiri wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed Maxamuud Xuseen Xasan mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ku daba jiraan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyay in falal kufsiga ay ka geysteen magaalada Baydhabo iyo sidoo kale deegaanada kale ee maamulka koonfur galbeed dhawaana ay sharciga marsiin doonaan faahfaahino ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay gobolka Sool iyadoona Somaliland ay ciidamo u dirtay deegaanada lagu dagaalamay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan deegaano ay maamusho Somaliland dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay 2 maleeshiyo beeleed oo deegaanka ah kuwaasi oo ku dagaalamay halkaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalka xoogiisu ka dhacay deegaanka
aricadeeye kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ilaa iyo hadda ku dhintay ku dhawaad 5 qof iyadoona tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen oo ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah. Sidoo kale warar kala duwan ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in Somaliland ay ciidamo dheeraad ah u dirtay deegaanadaasi kuwaasi oo ka baxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si ay u kala dhexgalaan maleeshiyaadka labada dhinac ee ku diray halkaasi. xaaladda ayaa ah mid kacsan waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ay isku hayaan dilal la xiriira aanooyin qabiil oo horey ugu dhacay gobolkaasi. Maamulka Jubbaland ayaa amni darada gobolka Gadow waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo la geeyay gobolkaasi. Waxa faahfaahinaysa Shukri Caabi Cabdi. madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu ka hadlay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadow oo waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah ee ku nool magaaladaasi Beled Xaawo. madaxweynaha ayaa waxa uu xusay deegaanada gobolka Gadow oo ammaan ahaa inta dowladda federaalka ay ku daabushay ciidamo kala duwan isla markaana ay sugi weyday amniga shacabka. deegaanada ayaa kala ah Beled Xaawo, Doolow iyo Luuq. intii ay ku jireen gacanta Jubbaland ayaa waxa ay ahaayeen deegaano nabdoon Jubbalandna ugu nabad badan balse tan iyo markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya la geeyay gobolka Gadow ayaa waxaa muuqanayay xaalado amni xumo oo ku soo kordhay gobolka Gadow sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaana sheegay in dadkii ku dhintay falalka amni xumo ee ka dhacay gobolka Gadow ay mas'uuliyadeeda qaadanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Khalifa Haftar ayaa sheegay in ciidamo lagu tababaray Soomaaliya la geeyay dalka Liibiya isagoo eedayn dusha kaga tuuray dowladda Qatar. waxaa faahfaahinaya Maxamed Cabdiraxmaan. afhayeen u hadlay dagaal oogaha dalka Liibiya ee Khalifa Haftar ayaa sheegay in maleeshiyada laga soo tababaray gudaha Soomaaliya ay ka qayb yihiin dagaalka cudda ee ka socda gudaha wadankaasi ee u dhaxeeya dowladda caalamka uu qoonsan yahay iyo Khalifa Haftar. Ahmed al-Mismari oo ahaa afhayeenka generaalka awoodda badan ee Khalifa Bilqaasim Haftar ayaa tilmaamay in maleeshiyadkaasi ay ku tilmaameen calooshoodu shaqaystayaal ay gaarayaan ilaa iyo 300 oo askari isagoo xusay in ay Qatar ay ku soo tababartay xero ku taala gudaha Soomaaliya kadibna ay geysay dalkaasi Liibiya. sidoo kale wuxuu tilmaamay in loo daadgureeyay magaalada Misrata si ay uga qayb qaataan dagaalka muddada sanadaha socda ee wadankaasi Liibiya ka oogan. afhayeenka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in ay kooxdaasi ay hogaaminayaan 2 sargaal oo ka soo jeeda dalkaasi Qatar inkastoo uusan sheegin magacyadooda. mashaacanin afhayeen Ahmed al-Mismari in ciidamadaasi ay yihiin Soomaali iyo in kale marka laga soo tago in uu sheegay in lagu tababaray Soomaaliya. ugu dambeyntii waxa uu ku goodiyay in ay beesha caalamka ay la wadaagayaan macluumaadka taageerada Qatar ay siiso dagaalamayaasha shisheeye ee ku sugan gudaha dalkaasi ee Liibiya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo ay dhawaan ay soo shaac baxday in Qatar iyo Turkigu ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in ciidamo Soomaali ah ay u tababarayaan in ay geeyaan gudaha dalkaasi ee Liibiya si ay kaga qayb qaataan dagaalka lagaga soo horjeedo mucaaradka uu hogaaminayo Khalifa Haftar walow ay dowladda Soomaaliya hadalkaasi ay beenisay wararka ka soo baxay. halka warkaas aad ka daawanaysaan daabadayaal waa TV-ga Risaale xaruntiisa magaalada Muqdisho markan akhbaraadka dibadda. wasiirka dhaqaalaha Kanada ayaa iscasilay kadib musuqmaasuq lagu eedeeyay. wasiirka dhaqaalaha Kanada ayaa sheegay inuu xilka iska casilayo kadib markii ay soo baxeen eedeymo la xiriira oo markaa ku sameeyay hay'ad. wasiirka ayaa la kulmay cadaadis ku aadan inuu xilka markaa ka dago kadib markii lagu weydiyay in uusan soo celin lacagihii uu ku safray oo ay markaa ay bixisay hay'adda si uu markaa u tijaabiyo shaqadeeda. wuxuu sheegay inuu dhawaan ogaaday inuusan dib u bixin lacagtaasi oo ahayd 41,000. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo la xiriira in isaga iyo qoyskiisuba ay ku lug leeyihiin hay'addaasi lacagta laga qaatay. waxa uu sheegay wasiirka dhaqaalaha Kanada in uu iska casili doono xilka uu markaa uu ka hayo xisbiga iyo waliba xubinnimadii baarlamaanka. guud ahaan daabadayaal warkii habeenaad ka daawanayseen TV-ga Risaale xilligani waa naga intaa.